اوكي شينو عليان كل بدير دهيا انتان كبخين ولا لي هالكلمه ربا inaan dhaho idinko raali ah shiino cule walaal macaani ma raba inaan kugu dambaawo ma raba inaan si xun kula hadlo waxa laga yaabaa daahanna iga weynta daada qarsanaysid laakiin haddii aan qixi ku soo gaarnaani adiga dad adduunyo u joogan oo ku arkay ma fahantam inaan ka hadlayo anigoo hadalka dhinac kale u leexinayna nin waxa tay ma sha Allah wadankii iga dambeeyay qurbo 6 sano 7 sano joogtay dhaqankii iiga dambeeyay markaan ku dhahay ma sha Allah guri xay ku soo kor wali guri xay markaan ku dhahay wadankii Puntland oo dhaqankii ku sii fiican oo dhaaf Soomaaliga dhinacaas ka imaaday saan anigu u maqlay ayaa ka imaatay rag wax badan ay xiigan 100 nin oo afarna qaba arkay 100 nin oo iyaguna qaba waxyaalo duqashadooda walaaqdana waan aragnay laakiin waxa sameynaysa waxaan u arkaa ina adar dagaal waxa ina raash dagaalka ka socda labadana hadda is dagaalaya amal ina xaaskaaga ay macruurtaada ula dagaalaysa anoo fidoos ila ma dagaalaysa sabarka saddex aan ku soo qoray at least ilaali feeling of your wife gabadha ma kala taga ama isla jooga anigu meel ku kala tagteen ma maqli ilaahay waran jir baraar bulshada waa ku jira dad ku agdegan xitaa way soo warameen gabadhaad waxa laga sheegaa naag uhlidiin ah oo yaaban inay ta kula yaabantay walaal macaani maraba gabadhan yar inaan ku xadgudbo ma sha Allah waa gabar yar oo Soomaaliyeed whatever her name is magaceeda hatta afkayga ma karo ilaahay amarkiis dadkan nacab uma qabo laakiin dadkan yaso afkayga magacooda ma karo laakiin adaan shiino kula hadlaa because public figure ana public figure ay shiino sidii nin raga u dhaqan gabadha hadaa guursateen gabadha abti kasta u tahay abtiyaash gabdhahooda isku ma marmaraane si yaro dhaqan wanaagsan war gabadha meher xalaalan ku qabaa official ka dhigan ku soo hambalyeynayna laakiin waxaan isman maroojiskiis walaaqa ah public figure markaatay icon ba waxa u tahay dhalinyarada aniga dhalay iyo kuwa gabdhaha hooyooyinka dhalay ayaa wada falxun tusinaysa walaal markuu ninka weyn yahay maskaxda inuu ka kara fiican waxaan ka faa'iidna macnaheedu waxaan ka wada waxaan ka faa'iidna marka dhaay shalay anoo kula yaabanayo digsiyo madax gashin jirta tigtaaga aan waxaan kugu arkay haddana dhaqankan xun in adeer gacali waxba la xiiriya guurso ceeb ma aha laakiin walaal guur mana qabi waan islaanay keenana waxa u dhaxay waxaan u arkaa in ugu meedmino qasiisna lagu ma tilmaami karo gaf bay ugu noqonaysaayo cumaamadaas waxaan u soo hubada laftan ka dhashay beenku mashiga suldaamay leeyahay ra'iisul jawaran Allah waa un laba la fray cali raaharo ma fahanti marka suldaamad anoo calankaas aan wato laga miyaaba hadal qalaaf inuu afkay ka soo dhaco laakiin daacadan ku la hadlaaya oo daacada suldaan markaan ku dhahay isku ma ka amaanay waa nahay suldaan laftan ka dhashay aniga suldaanay sinsnin rago lafteeda hadinta fadhiin anaa ku mutalaay ina adershiino culay waan ku bariyaa in gumeennimada joojo oo waxeeri bal maanta waa mehersaday anaa ku soo hambalyeynaayo een ka dhamaa أنا كبدت بلاش شيء سنة إلا مهر حلال ما وضعه ببلغ مكان وان كلا حشة هذا قبل مننا لك حشون جري قف كان الله الله يفردوس قف كان محمد كان حي مكان له ما يحبنا جمع دحي because نورش جرانتي ما هو أنتم مهر خوف وجود عيلا ما شك شاك وحسمينس وقلوبتك قبل عقبتي إنا قلت ما فهمت منك هذا قدر سود هواي نادر قاعد قدر أبشر سود هواي قلوبت حاسك إنا قلت دواي إلهي أفرق كل ميل كوبني لكن قلوبك حاسك قلوب معناه waxaan ka wada walaal maskax caafimaad leh ilmeeda ku korsato that's it hada guursatin umad u soo bandhig uma xumin afar guursada ama laba guursada laakiin hadaan dumarnay kisto waxaan u arkaa la faqra aniga ahaan saan u arkaa waa wixii damiir leen ugu dareemi karaa la faqra waxaan u arkaa gabadhaas dhaawaceeda waan dareemi karaa iyo xanuunka ay qabto waxaan u dareemi karaa ninkaaga waxba naagsaas malo ku yaranay kayo qofkan waxa uu fiican daadiisa isaga inuu siir match karaan rag waxaan arkay gadaal u socdo macnaheedu ma garanay aabiyaad kor wuxuu yiraahdo aabo qurbad dadka markay imaadaan ma weyn maskaxda biyada ka weynaan buu dhahay maxaa dhacan dhahay aabo aabeen aad ula sheekaysto ay somehow gabadha cid ugu weynaan waligiis miis uu wada jecel laakiin si gooniyo aan ugu jeceliyo aabay Saciid Xaji Dar Saciid ko kala abinta ka salaamay ilaahay caafimaad ku siiyo kismaayo jawaabadana YouTube-kaygu daawada wuxuu yiri aabo waxaan arku yiraahday qof weyn lagu tilmaamayo markuu hadalada afkiisa ka soo baxana oo yara qajilaysa ay ka yara xishoonayso war qofka maxaasi ah marka macnaheedu waxaan ka wada sheene inaad ilaahay kugu dhaarshay waxeeri ragii naagaha shiino culay qabiil ahaan ugu hiilnaayo war waxa sheekada qabiil ma ahayn gabadhaas qabiil ahaan in kama fogo gabdhaha waa isku wada mid qabiilna wax ma taray badana adoo qofkaas adoo kale ka soo qaad kabaha la xiro waxaan ka wada ta guriga joogto shiin dhoorka carruur afarta shanta u hayso amal bal feelingkeeda dareem maxaa dareem lahayd ما فهمت منك الله تلوان شينو قبل الله كودا يا ود whatever the case is ولا هدا جعش ما حشمينيس
waxa ilaalinaya xataa sharafteeda ma ilaalinaysa because iskuma kiin tolin bari kamal hadaa xataa ka qabtidan kaaga soo qaaday qabtidbu waa furi kartaa laakiin fil farxumaan ugu barto waxaan ka cabsoonayaa inay ku guurweyso future ka dambe ma fahamtay iyada xataa waxay noqday jid xaraq mareen oo yiri use gareeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta ka sii badan afkayga gantaalaha ka dhacay dishiiko maalin baan ku soo dhagay saas uga yar lalmadi 2 bil waan ka nasanay in aragteen ma ogiye sheekadii u bilaabay fardoos ay qabatay man dhuusan waa ogeed cadaab assalamu calaykum